shir saxaafadeedkan ay qabteen qaar ka mid ah isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayay ku sheegeen in aanay waxba ka ogeyn wada hadalada u bilowmay Khaatumo iyo Somaliland ha yeeshee isimadani waxay carabaabeen in loo baahan yahay marka laga hadlayo masiirka ummadda inta la qaran la isugu yimaado isla markaana cid kastoo arrintan khuseysay wax kala socoto balse isimadani waxay iska fogeeyeen in aanay ku lug lahayn ama aanay waxba ka ogeyn wada hadalada haatan bilowga ay ka bilaabmay magaalada Caynaba sidoo kale isimadani waxay iska fogeeyeen shir la sheegay inuu ka dhici doono magaalada Dubai ee Cariga Imaaraadka Carabta kaasoo la sheegay inay ka qayb gali doonaan qaar ka mid ah isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo qayb ka ah wada hadalada Khaatumo iyo Somaliland oo bilowmay geesta kalena waxay isimadani ku baaqeen in siyaasiyiinta waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu yimaadaan shir ay kaga tashanayaan aayahooda siyaasadeed iyo kan mustaqbalba dadka deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn shirka lagu qabtay Caynaba iyo ragga ka hadlay saxaafadda ee yidhi anaga talada dadku naga goodaa waxba kama jiraan talada dadku waxay ka goodaa dadkoo dhan waxay ka goodaa isimada waxay ka goodaa cuqaasha waxay ka goodaa waxgaradka waxay ka goodaa cidka bulshada deegaanka oo dhan waxaana uga mas'uula cidii ay u idmadaan markay ka tashadaan ee talada isugu yimaadaan cidii ay dirtaan ee golo laga diro ragga ku lugta leh ee idaacadaha ka hadlay raggaas uu khaas u yahay nama matalaan haddaanu nahay isimada 10ka ah iyo dadkaan odayaasha u nahay dad ma matalaan taa waa idiin sheegnay imaaraadka shir baa lagu qabanayaa baa la yidhi rag baa ka qayb gelaya waxay kaga qayb gelayaan goboladan inay iyagu matalaan annaga nama matalaan maanaan dirsan nooma yidhaahdaan nooma soo qaadaan iyaga wax ku kooban weyn Somaliland rag baa hore u joogay deegaamadana hadday hadda iyagu ku biireen iyaga ku biiray hawshaas hawl iyaga u taala weey haddana waxaan u aqoonsanahay inay ka mid yihiin dadka dhinaca Somaliland jira ee beesha ka soo jeeda dadka intiisa kale ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxgaradkooda isimada cuqaasha siyaasiyiinta ganacsatada iyo dadka Somaliland dhinaceeda naga jira ee hore u joogay iyo kuwa hadda ku biiray iyo kuwa Puntland jooga iyo kuwa beela kala jooga dhammaan waxaan ugu baaqan in shir la isugu yimaado mowqifka waxaan ku cadeynaynaa arinta iyada ah waxba kala ma soconno socod la'aanta ka sokow saxba ma aha waxayna sax u ahayn hadii cid lala hadlayo oo ama Somaliland la midoobayo ama cid kale la midoobayo yaa la midoobayo weey waa in dadka oo dhan laga talageliyaa isimada cuqaasha siyaasiyiinta culimada waxgaradka in laga talageliyo qof walba maxaa kula haboon waxa weeye talada beelaha kan ama Sool Sanaag iyo Cayn cid kaligeed qaadan kartaa ma jirto isinama ma qaadan karaan siyaasi gaar ah ma qaadan karo dadka dhinacyada iska taagan bay noogu dhadhamaysaa dadka dhinacyada ka taagan baa khalad iyo sax wixii ka soo baxa hadhowto ku xisaabtami kara arintaas sidaas aan u aragnaa waxaan ugu soo duulduulaya arrimo runtii naga yaabiyay oo aan filayn waxaanu maqlaynaa Caynaba wada hadallada ka dhacaya waxaanu maqlaynaa isimadu waxay qabanayaan Imaaraadka arrinta iyada waxa la waxaan ka ognahay ma jirto ilaa hadda cid noo soo sheegtayna ma jirto cid nagala tashatayna ma jirto markay Caynka tahay oo talada la wada leeyahay hawshaasina ay dhacday halkaana marayso oo laba shir iyo laba fadhi iyo laba goobood la tilmaamay ama khusayso 10ka isim ee u garaadku sheegay haddaanu nahay ama khusayso taladuna waa naga dhaxaysa annagoo isimo badan ah oo ku midaysan fikirkaas oo ilaa 10 isima shirki ka dhacay Caynaba oo aan la isla ogeyn oo maxay ahayd aan u aragnay inuusan u intamaynin deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn hadalhaynta ugu badan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ahayd wada hadallada u bilaabmay Somaliland iyo Khaatumo kuwaas oo wajigoodii koowaad u dhacay ha yeeshee isimadani waxay carabaabeen in aanay waxba kala socon bilowgii wada hadalladaasi Maxamed Ahmed Jamac TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada